سيدك يسيبو ربيتو جيرو برواغا نكاغو سنايسان نكاغو سنايسان سيدك جيرو ربيتو جيرو برواغا نكاغو سنايسان نكاغو سنايسان الفنان ملحن موسيشين dadku waxay lahaayeen abwaan waaba yahay waa natural min saddex isku helay fanaaniintii Soomaaliyeed shantii u sareysay buu ku jiray Axmed Caligaal isaga marxaati furaya waa yaraa fanaanin waa jireen heesa laakiin aan muusik tuman karin aan cod samayn karin abwaanku markuu heeska sameeyo cod buu rabaa codkuna muusik buu rabaa waa isku xirayeen shanta u sareysay Axmed ku jira horta barasho wanaagsan وحتى هاي قديدو بحاد بوري فريدي هالبولها كنتي سيو والنها قاركيسي marka gabadhii waan isweynay sidii doonta noqoto nin saaxiibana markii la taliyay wuxuu ii soo gaday bayteriyo raadiyo waa adduunka fiicnaaday intaan laab salax iyo la gaarin mobile marka waxay bayterigii buu ii soo gaday xajiradna uu keenay wuxuu yiri xajiradaas dhageyso xajiradii marka waan u sheegay Axmedna waxa ugu horeysay albumkii heesta garqaado jacaylo marka heestu in aan ila hadlaysaa muddo waxay leedahay in fact waxay la hadlaysaa jacaylkii bay la hadlaysaa heestaas oo ay la mudacaysaa waxay leedahay jacaylow garqaado aan gam ee idaa iga siib gantaalaha waa yani isagii bay la hadlaysaa haddaad aniga garbaduub ii qabatay oo xirxirtayna hadda ani ma hadli karo adigii baa meel igu haysta ama haddii kale orado adigu tago jacaylow ii soo qareen macnaheedu waa saas moogtaa marka waan ku nafisay waan ku bogsaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ka salaamayaa dhorta dhamaan dadkii soo abaabulay meeshan quruxda badan leh siiba dumarkeena qaaliga ee aad salaamaya iyo dhalinyarta la soo shaqeysay maanta inagoo soo dhaweynay fannaankeena qaaliga ee qaranka Axmed Cali Cigaal maantana si sawirteena waxaan leeyahay Axmedow aad iyo aad yaan kugu farxnay imaashaaga noo timaaday insha Allah ma sha Allah waxaan Ilaahay ka baryaa inuu Ilaahay safarkaaga kugu nabadgeliyo oo ku gaarsiiyo meesha doonaysa insha Allah dadkiina naga wada salaanto intaasan ka baxaya assalaamu calaykum waraxmatullahi حاجة وحلا أحمد مالك صوت تجيب صوت دوية وفنان قروين أدلوج علي هاي وما شاء الله وهي سيسون أدو بدين إن شاء الله ما شاء الله بقى أساسا كجب حياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد we love you all ما شعب قروح الطبيعي كسر خير مناسبتنا سبوتيتا روحها الجريد الفنان أحمد علي عيال ونوين من الأفق أحلى فران الفنان كل يوم وعليها قريبة ماشيين مركو وراء مركز الدكتور وحيان واتيقة عيال وعيال كان عاونين كسبوتيو أنا شخصيان shacabkii dadkaagii Soomaali gabigeed gobashaan wixii dhigay garanaya qarannimo qabiil male fanaankuye qaymay leeyihiin ana waan qadariyaa waa bari xusuusada falku waa hidiya dhaqan waa suugaan afwaaneed fanaaniin ka heeseen murti hodan ah lagu shubay shacab lagu hogaamiyey dadku haybsadaan badi loo wada haween yahay waa bari xusuusada habaliya salaan iyo niyad saafiyoo wacan nabad kugu sagootinay sii soco cigaalow adigoo salaamo ah sama kula jeclaanay saadabkii ku nabadgeeda
waxaa tahay ood ku tilmaaman tahay muraayadda iyo dadkii qaranka Soomaaliyeed ka ugu horeeya taariikhda ka tagay aad iyo aad baad dhammaantayo aad meel weyn ugaga taalaa adiga iyo intii kula mid ah walaalkeen Axmed Cali Cigaal waa soo dhaweynay intii tabartayada ahayd muddadii uu nala joogay waanu soo dhaweynay waxaan rajaynayaa wixii uu nagala kulmay hadee isaga masawirkeeda na siin doona laakiin annagu waanu dadaalay inuu noo yimaado aan aragnana runtii waxaanu muujinay inaanu aad ugu baahnayn anigu marka imaatinkiisii iyo wuxuu nagala kulmay iyo wuxuu isagu dhihi doono waxbaan ka oran doonaa isagaana soo dhihi doono inagu soo celin doona haddii alla idmo bictureka caawa halkan ayaan akhrin doonaa haddii rabbi idmo oo suugaan ku cabiri doonaa isagaan u gudbin doonaa haddii rabbi idmo waxaan rajaynayaa inay dib inoogu soo noqoto suugaanta waa laysla sheegay Soomaaliga meesha lagu ilaaliyo taariikhda meesha lagu kaydiyo waxay inoo ahayd suugaanteennay ahayd maanta aanu nin waxaanu isku soo qaadnay waanu sheekaysanaynay kelmad waxaa meesha timid markaa waa u tallamayaa tallan baa meesha yimid tallankii baa waxaa loo baahday in la macneeyo marka hees baa jirtay uu ku jiray waa u tallamayaa mirihii baan gadaal uga soo bilaabo waxaan idhi gabar baa waxay tiri jacaylkaygu waa tiro boqolkiiba waa 10 9 baan tirtirayaa midna tuhun yar baa u haray ma tirtaa ma daysaa ma tagtaa ma joogtaa wali waa u tallamaya kelimadii tallan marka saasaan ugu macneeyey ninkii odaga ayaan isku soo qaadnay suugaanteennu marka af Soomaaligeenu wuxuu ku jiraa suugaanteen runtii qiimaha fanku uu leeyahay iyo Axmed Cali Cigaal bulshada Soomaaliyeed heerka uu ka taagan yahay waxaan u malaynayaa in lagu wada celceliyay anigoo hadda ku hadlaya afka dhalinyaradana kolley waxaan idin caddayn karaa inaan ahay shakhsi ku taxan oo waqti badan soo dhagaysanayay Axmed Cali Cigaal ilaa iyo intii uu soo garaadsaday waxaa aad iigu weyn oon aad macnaha ugu garaadsaday riwaayadii la oran jiray Dhada Roob Noqon Weyday waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa oo ka salaameynaa mudanayaasha iyo marwooyinka quruxda badan oo sharafta badan gabdhaheena iyo dhammaan mudanayaasha nagala soo qayb galay caawa munaasabada quruxda badan leh oo aan ugu talagalay inaan ku sagootino legend fanaan abwaan Axmed Cali Cigaal Axmed Cali Cigaal soo dhawow sii dhawow waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad noogu imaado Australia hadda ka hor waan dhahanay Australia waa wadan fog marka anaka aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa qofkaas oo kale muhiim ka ah hadduu noo imaado oo waqtiga dheer iyo jidka dheer noo soo maro we appreciate waa ku mahadcelinaynaa jidka dheer noo soo martay haddana waxaan leenahay safar salaama ilaahay meel khayr qabta ha ku geeyo salaamaha ku geeyo haddee kolley meelo kalaad sii marmaraysaa laakiin wadankiina waa u socotaa haddee waxaad ku jirtaa abwaaniinta ama fanaaniintii hore oo gobolada waabari dadkii maaragtay muhiim ugu ah bulshada Soomaaliyeed insha Allah haddee wadankii waxaa lagaa rabaa markaad tagtid insha Allah dadkii oo dhan ugu salaan wixii la yaqaaniyo waxaana aqoonta Soomaaliya oo dhan ugu salaan waxaana laga rabaa sidii Abuu Cumar u sheegay dadka adiga oo kala oo muhiimka u ah Soomaaliya ina maaragtay haday tahay dhanka fanka iyo haday tahay dhanka wacyigelinta aad maaragtay kaalintiina qaadataan oo maaragtay heesihii hore oo maaragtay qaraamigii iyo Soomaalinimadii iyo hidiyo dhaqanka ay ku dheehan tahay hadda baryahan waxaana qabsaday dhaqtan ku saaraya iyo wadnaha ay dhagle marka waxaan sidii Abuu Cumar u sheegay waxaas moogta wadnaha ay dhagle waa wax iska maaragtay waa waxaan meel ku salaysnayn laakiin sida Abuu Cumar u sheegay dhabarkii iyo ratigii iyo gabdhihii ariga soo rogayay iyo arrimihii noocaas ahaaba Soomaali anfacaya iyadana anfacaysa anoo dhaqankaas quruxda badan oo runtii aad iyo aad maaragtay miisaan fiican u lahaan ku soo kornay arrimahaas ha la dardargeliyo
ilaahay ku nabadgeeyo heesihii lagu xoreynayay heesihii lagu abaabulayay heesihii lagu dhisayay dalka heesihii lagu dadka lagu jaheynayay kii fikir horumar aan dhiirigelinayay qofka markii loo heeso ama dhiirigelin baa jirtee oo dhinaca wanaagsana axmed wuxuu ka ahaa kakow abwaanadii soomaaliyana ayagana waxay ahaayeen door weyn waxaan xasuustaa aniga abwaan la oran jiray xasan sheekh muumin axmed cigal waa abwaan usuf xasan sheekh muumin waa shabeelnaagad iyo xaasiludooyo dhinka samayn jiray riwaayadaha haddana wuxuu ahaa heesihii dugsiyada aada iyo ogaada iyo ninkii samayn jiray weeye iskoolaadka barnaamijyada samayn jiray ardayda isku doori jiray abwaanayntii ka damayn jirtay xasan sheekh muumin allah naxariiste markii jabuuti xorowdana jabuuti baa si official loogu diray si uu jabuutina wax uga dhiso fanaaniintii heesahaas qurxin jiray dadka madaxooda ku shubi jiray axmed cigaal oo ka mid ahaa waxaan sagootinaynaa fanaan qaran axmed cali cigaal waxa weeye fanaan to be honest waxa weeyaan aan ku soo kornay aan la soo kornay aan ku soo hana qaadnay qof walba oo Soomaali ah ama da'danada ha ahaado ama da'da naga yaryar ha ahaado ama da'da naga weyn ha ahaado aan wada naqaan waxa weeyaan mujtamac markii la fiiriyo mujtamac sidiisaba markaa fiiriso hadduu mujtamacaas uusan ahayn mujtamac la gumaysi ah sida ama Latin America kaleeto ama mataqaana mujtamacyada sida Australia kaleeto ee la qabsaday wadan aan la qabsanin oo wadan la yiraahdo origin ama aborigin run markaa fiiriso waxa lagu qiimeeyaa thaqaafadiisa marka thaqaafada markaa fiiriso yani waxyaalaha soo saaray kamid tahay yani qarnigii 11aad thaqaafada islaamka waxay tan ugu sarreysay waxyaalaha ugu waaweyn ka soo baxay waxa kamid ahaa culimo waaweyn oo gaarsiiyay mataqaana islaamka soo gaarsiiyay meel wanaagsan oo aad loo bartay culimadaas mar walba waxay isticmaali jireen dadka ku fiican fanka dadka ku fiican yani shaaciriinta ku fiican dadka ku fiican aftahanka ay soo dhaweysan jireen waxay u soo dhaweysan jireen waxa weeye qofka marka aad maqalkiisa ku raaxaysato waxa uu sheegay inaad baranaysaa in fact psychologists waxay isku raaceen heesta ilmaha in lagu baro farta markii la barayo yani 1 2 3 marka la barayo ama alphabet lagu barayo English la barayo waxa lagu barayaa si heesa loo baraa waayo heesta qabashadeeda way sahlan tahay marka haddii aad ma taqaanaa hees la yiraahdo waa xaraan haddii la yiraahdo waxa waa xaraan haddii la yiraahdo waxa waa xaraan waxa weeyaan waa dad aan u arko ani personally iyo inta ila midka ah in thaqaafada la dagaalamayo thaqaafada Soomaaliga waxay ku horumartay intii yareeda 74kii hadda uu ka hadlayay Axmed iyo adeer ay ka hadlayeen adeer qambi waxa weeye yani dadkii af Soomaaliga qoray waxayna soo gaarsiiyeen in maanta luqadanadii ay qoran tahay lagu heeso lagu hadaaqo marka aniga aragtideedu waxay tahay dadka yaryar ee maanta farakutiriska ee Axmed Cali Cigaal oo kamid yahay waxa weeyaan wajigii Soomaalida weeye waa thaqaafadii Soomaalida weeye meel kasta ay tagaana qadarin ay ka mudan yihiin dadka Soomaalida ah Axmed walaal soo dhawow mar labaad nabadgelyo labada suuq hadarayna inkastoo aan hore u sameynay farxad weyn bay dhamaantay u ahayd una tahay inaad noo timaado sidii dadka iga horeeyay ay sheegeen oo aad nagala qayb gasho barnaamijyo badan oo halkan laga sameynayay aadna booqatay waliba meelo kale oo ka duwan Melbourne anigu waxaan ahaa dadkii soo jeediyay war Axmed Yuusuf naga tegay inoo haya laakiin waxaan moodaa inuu goostay inuu noqdo oo meeshii uu ka yimi ku noqdo bal aduu dib baan u hadli doonaa marka xagga tagto waxa laga yaabaa inaad wax naga ogolaato run ahaan suugaantu Soomaaliga ama heesa lagu qadimo lagu dilifargarayo ama gabay ha lagu bedelo ama dhaanta qaabkii la doonaa loo bedele suugaantu waxay ahayd waxa afka Soomaaliga haya Soomaaliga marka la raadinayo hadda oo erey la isku qabto saad la socotaan ba hadii jeer waxa laga raadiyaa gabayada haba ugu badnaa gabayadii uu tiriyay ninkii la oran jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Axmed horta waxaan rabaa marka ugu horeysay inaan u sheego markaan noo tibniyo jacaylkii baa noo yimid magaaladiiba way wada jeclaatay intii waxaysatay intii kalena hadda ay raadinayaan oo iyaga carradayba feerinaya marka jacaylkii 40 sano lagu daldalayay hadda waa lagu bilowday taa intaasaan ka leeyahay tan labaad waxa weeye anigoo fursadan ka faa'iideysanaya Axmed runtii waqtiga
ee aanu isweynay maahane aniga riwaayad baaba ii diyaarsanayd baadigoobka jacaylka la yidhaahdo heesaheeda haddaan ii yar ka taabto hees ka mida waxay leedahay anigoo barbaaro baahidii jacayl qaba intaan baadigoob maray caawaan bandhigayaa bulsho yaabaligaho marka cabdirashiidna caawa wuxuu yidhi nin walba waxaan ku aasanaa soo saar marka kuwa badan baan soo saaraya dadku isma yaqaan halkan aan isku arkay tan kaleeto waxa weeye riwaayaddani heeso badan bay leedahay waxaan ugu talagalay weliba dad adigoo kale inaa heesaheeda qaadaan runtii oo wixii farsamaan aad ila totoosaan insha allahna waan soo wada xiriiri doonaa tan labaad waxa weeye adigoo caruuro aan weli cagaha dhigan hadduu caashaq kugu dhaco cilmi baaristeedii caynka anaa helay adigoo ciroolaa caruur badan hore u dhalay haddii caashaq kugu dhaco cidina kuu garaabay ilaa caruur baad haystaa moogta xaas baa leeda cidina haddeerna waa lagu hayaa maxaa dhahaysaa axmedow dee iyaduna taasna cilmi baaristeeda caynka anaa helay nabada sii socoado nabada sii socoado nabada soo noqo adoo nabada maasha allah horta waa ku darsan doonaa inta aad maartay intaad iska haytusta haddana aad naga noqotay aad baan kugu faraxsannahay imaashahaada adeer welcome kusoo dhawow reer Australia dalkaadii ku jecel baan wada jooga maxaa la dhihi jiray waxaana runtii adeerkay aan maalinkii Puntland baadhi u jiraa waxaan ku yidhi adeer Puntland baadhi noo hees markaasuu adeer waan ka horreeyey yiri calamada cusub waan ka horreeyey yiri qaran Soomaaliyeed baana marka kama heeso taana waxaan ku leeyahay hambaliyo aad baad ugu maartay kelmadaas ay siisay jawaabteeda aad baan ugu faraxsanahay marka adeer soo dhawow adoo nabad ah wadankaadii hooyo aad annagana maxaa la dhihi jiray waxaan ku leenahay noo soo noqo waana mahadsantiin waxaa kaloon mar labaad salaamayaa fannaankeen qaranka axmed cali cigaal ayaan aad iyo aad u salaamayaa oo nin qarana oo meel kasta laga yaqaana waxaan leeyahay soo dhawow iminkana nabadgelyo dhulkii allaha kuu geeyo fannaan kale bulaale gar fadhiyaan aad baan u salaamayaa dhammaantiin marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan halkan salaan uga soo gudbiyo dadkii barnaamijkan soo qabanqaabiyey halkan aynu caawa isugu nimidna runtii ka soo shaqeeyey waxaan sidoo kale rabaa inaan salaan gaara aan halkan uga mariyo walaalkeen axmed cali cigaal oo aan filayo haddaysan badnaynma 2 habeen wixii ka dambeeya inuu safar yahay haddii rabbiidmo waxaan oranaynaa insha allahu safar salaama ilaahay nabad ha kugu geeyo halkii aad markii hore ka soo safarto ka timid runtii waxyaabo badan aan laga sheekeeyey anigu waa iska soo koobaya haddii rabbiidmo dadka hadalka badanna maahi oo uma dhalan waxaan rabaa inaan ka hadlo ama sheego suugaanta waxa la yiraahdo inkastoo aan aqoon badan u lahayn oo raggii suugaanyahaniinta ay halkan fadhiyaan qaar ka mida barnaamij uu ka shanqariyey walaalkeen cabdirashiid oo runtii aniga xusuus gooni ay geliyey baa jiray oo ahayd waagii iskuulka la dhiganayay waxaan ahaa dadkii qaatay xifdinna jiray runtii silsiladan la oran jiray silsiladii xaydha waxaan ka xasuustaa xirsi caamir markii loo keenay markii araabtii loo diray uu runtii uu subagii loo diray mid ka duwan uu keenay ninkii ugu horreeyo hadalka qaatay wuxuu yidhi xirsi caamirow layna hiif laguna haaraanye allayle habaar baad qabtaa waana la hubaaye rag hadduu horfulo kaa dhigto hibo lagu yeelo waa loo hagaajaa anfaca hadasho waa ceeb marka isaguna runtii waa u jawaabay waxyaabaha aan ka xasuusto waxaa ka mid ah wuxuu yidhi markaad fartii hilib dilqaha kaa haraatiday ama 2 gadiid ka xinqataad hoonana aysaaye macnaha markii hore maxaad u sheegi weysay oo aad runtii intaadan hadalkii oran intaadan subagii intaadan isticmaalin maxaad cabashadan aad u keeni weysay markaad dhamaysay kadib baad maartay gabayga soo tirisay wey runtii waa iska ceshay isagu laftigiisa caawa ma hadli karo ma sheekayn karo
waayo san idinku imid reer Melbourne waxaan ku jiray farxad iyo macsuumad iyo kalgacayl iyo muxubo fanaan Soomaaliyeed lagu soo dhaweeyo noloshayda maba arag hore uma arag marka ilaahay iikin keenay baa hadda suugaas kale isku keenay haddana ama bax baan ahay waxaan oranayaa oo kaliya maaha inaan heeso caawa laakiin wax yar baan rabaa inaan xasuus idinka tago القعيك اللي تلاقي يا أنا نبونا كدلا علومة مدايان تجري علومة مدايان تجري علومة مدايان تجري علومة مدايان دخيو كالقعيك اللي تلاقي يا أنا نبونا كدلا تضيو هذا الكون حمغلين دري الباج عيل دوي الكود حمغلين دري الباج عيل دوي دادالو دقيقة علومة مدايان دقيقة علومة مدايان دقيقة علومة مدايان دقيقة علومة مدايان دويو كالقعايل كالليدينا يا أنا نبونا كدلا دقيقة علومة مدايان دقيقة علومة مدايان دقيقة علومة مدايان دقيقة علومة مدايان دخيو كالقعايل كالليدينا يا أنا نبونا كدلا